munaasabadan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda biyaha iyo tamarta dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa lagu xuseeyay maalinta biyaha adduunka oo ku beegan 22 Maarso maanta oo kale. munaasabada waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabelle, maamulka shirkadda biyaha ee Farjano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada reer Jowhar. waxaa ugu horeyn goobta ka hadlay Cali Nuur Xasan Cali Qalac oo ka mid ah madaxda shirkadda Farjano, wuxuuna sheegay shirkadda biyaha ee Farjano dadaal dheer inay ku bixisay sidii bulshada reer Jowhar ay u heli lahaayeen biyo nadiif ah. shirkadda Farjano waa shirkad wadani ah beledkan hadii la in badan biyo maamulaysa iyo waxbarashada. haddana hadii la yiraahdo waxay maraysaa meelo fiican xagga waxbarashada, intaasoo difcadood ayaa ka qalin jibisay waxbarashada. biyahana hadii la yiraahdo sida aragteen Soomaaliya meesha ugu biyo macaan ambas ugu biyo jaban ayay tahay Soomaaliya ayay tahay Farjano. dhinaca kale kusimaha gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamed Cabdi Sheekh iyo wasiirkii hore wasaaradda biyaha iyo tamarta Hirshabelle Shucayb Cabdikariim Muumin ayaa waxay tilmaameen in lagama maarmaan ay tahay dhammaan bulshada ku nool Hirshabelle inay helaan biyo nadiifsan. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa wasiirkii hore ee biyaha iyo tamarta Shucayb Cabdikariim kaasoo wasaaradda wax badan ka qabtay, keenayna meel la taaban karo ama meel laga sii wadi karo oo qofka loo dhiibay meel uu ka sii abaqaadi karo. keena aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa. wasiirka cusubna waxaan leenahay wasiir ku soo dhawow, waxaa ku sugaya shaqo adag. waxaad dareemi kartaa isteedka inta xadka uu balarkiisa uu la egyahay iyo biyo la'aanta ka jirta degmooyinka iyo tuulooyinka qaar aad adiga laftirkaa ka warhayso. waxaan ka rabnaa inay dadkaas gaaraan biyo nadiif ah. waxaan rajaynayaa wasiirka cusub in meeshii la keeno wasaaradda kasii qaadi doono bilaasheen wax culeysaan ku dareeman do'aaleedmo in ilaahay subxaanahu wa ta'aala la fuday adinkana la shaqaysan una hambaleysan ka codsanay marka hore. taa kadib wasaaraddu waxyaabaha ay qabatay waxaa ka mid ah ayadoo hadda aan u jiro do'aaleedmo sanadkan 2020 la bilaabi doono yactirka biyo xileenno dhowr ah oo tii beledweynaha iyo mid aan Jowhar duleedkeeda waan rajaynayno sidii u dhaqsaha badan in laga jawaabi doono. ugu dambeyn wasiirka cusub ee wasaaradda biyaha iyo tamarta Hirshabelle Saalax Maxamed Xasan ayaa sheegay wasaaraddiisa door weyn inay ka qaadan doonto helidda biyo wanaagsan. maanta waa maalin weyn, waa maalinta biyaha adduunka. qof walba waxa uu ku qasban yahay inuu biyo nadiif ah u helo ayuu xaq u leeyahay. annagana aan ku wada dadaalno insha Allah tacaala ka wasaarad ahaan doorkeena waa qaadan doonaa. aad aan u mahadsantihiin. Ibrahim Ali Nuur, TV Universal, Jowhar.